أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله حتى وحان إن شاء الله ربا إنان برانو أو نيشرحو version ka oo markii oo install package sameyn version ayuu ku imaadaa sida hadda yani version ka hadda anaga ay haysano oo markii package aan sameysanay magaciisa package ka npm version kan jida ayaan sharaxayaa laakiin waxaan rabaa inaan package aan kasoo qaatay oo meel kaleeta ayaan ku sharaxayaa saasaa ii fiican si hadhuutii magaciisa ayna fahamno waxyaal qaarkiisa oo magaciisa laga wado wax yaraan sugaa okay marka waxaad arkaysaan applicationka nano id markuu install sameyno waxaa la socdo versionka 3.1.23 iyo waxaan yar oo sample kanity wixii laga wado iyo qaar ka mid ah marka intaas oo yani waa usoo laabanaya just waxaan haystaa ama meeshaaniti oo samaystay versionka micnee leedahay lambaryaashan micnee leedahay okay horta waxaan ku bilaabayaa versionka raqamka koowaad 2.3.5 waxay rabtay noqonaysaa laakiin just 3 raqam waay midaanid ayaan ku bilaabaya kan markii aragtid waxaa laga wadaa bunch oo bug fixes in case haddaa aragtid meeshan wax oo isbedelayo waxaa laga wadaa waxaa la fix gareeyay ama waxaa la bunch gareeyay مثلا kasoo qabo wax baa isticmaalaysa hadda package baa isticmaalaysa ama adiga wax sameysay application sameysay wax baa fix u baahan tahay inaad fix garisid markii update sameynaysid waxaa laga yaabaa dad qaarkooda niyo muxuu kan update u sameeyay ama maxaa update loo sameeyay dadku waxay rabaan inay ogaadaan update ka maxaa waaye markii inaad tusis waaye update kaasiti markii inta ka bedeshid waxay fahmayaan inay tahay wax oo bunch gareysay ama wax fix gareysay kan dhexda ah waxa weey minor version waaye oone kamid ah haddii oo soo dartid new feature wax cusub ah feature cusub ah laakiin not breaking API safe to update yani ma ka haleynayo applicationka ma ka haleynayo yani safe way in update gareysid because qaar kamid dad waxaa jira developer yaal waxaa jira oone ka haleynaya jira haddii isticmaashid application ig sameeyeen ama package ig sameeyeen oone fahmeynin waxyaal qaarkiisa way ka haleynayaan waxyaal badanaa jiro problem imaanayo so laakiin haddii oo developerka dadka inay ahaadaan waa dad oone wax fahmayaan so yani waxaa loogu talagalay inuu ka halaabin ama ka haleynin marka safe way waa update garey kartaa labadaaniti waa safe midaan markaa aragtid inuu isbedelay hadda shamo 6 noqdo wax feature oo waxaa la soo geliyay wax cusub baa la soo geliyay oo feature wax shay oo lagu soo daray ama dad codsadaniyo dad waxaa laga yaabaa inay codsadaan feature kan soo geli badnaan WordPress ama waxyaal qaar ma og dadka WordPress fahmayaan waxaa jira application sameynays dad wax ka codsanayo dadkaas markaas intii aad wax u soo gelinayso marka feature kaas intii markaas waxa dhisa feature kaas cusub waay feature kaas ayaa meesha that's why meesha soo dhaxgalayo so meeshan waa 5 noqonaysa tadawada hadda aan raqamkan waa raqam aan qoray waa meen wax oo magaciisa tilmaam siinayso 7 meen just raqam yaal aan qoray waay oo fahamsiina dadka major version waay haddii oo midlan tadawadaani noqdo 8 waxaa laga yaabaa oo dhici karto inuu ka halaabo applicationkaada ama ka halaabo magaciisa si wax kugu shaqeynay dhan ka halaabo waa laga yaabaa inay ka halaado may break the API waa laga yaabaa API-ga inuu ka halaya API waxa laga wadaa waxyaal oo data kasoo qaadanaysa meel kale kasoo qaadanaysa ama database ahaato ama website kale ahaato ama website yaasha wax isla xiriiraan waxa laga yaabaa inay ka halaado waa laga yaabaa waaya
marka saasaa laga wadaa versionka micnaha micnahaas ay leedahay. Just waxaan rabaa waa usoo naqanaynaa waxaan yar oo hadda aragtid oo arrowganit kor u baxsan symbolkaniti in case haddii oo mathalan nano id-gan packagekanit haddii wax update la sameeyo ama wax la sameeyo magaciisa bug fixed la sameeyo, waxaa isbedelayo kana isbedelayo 2.3.2.4 uu noqonayo. haddii oo feature cusub soo galaan waxaa isbedelayo magaciisa maxaa la raqamkan hal ma labo noqonayo. markay saas tahay labadaaniti ay isbedelayo okay, ama fixed packet yani wax la fix gareeyo ama wax feature cusub la soo geliyo markii arrowgan kor u baxay kan labadaanid ayaa bis يعني بدلا ama feature cusub ahaado ama wax la sameeyo. laakiin kan ma taawanayo markii oo yahay arrowganit kan waxa major way. waxaa jiro mid kaleete hubina magaciisa hello waa kan wuxuu sheegayaa symbolkaniti kan le bedelma kan ma taawanayo okay. kan dhan haddii uu feature cusub la soo geliyo featurekaas cusubka update ma sameynayo bis wuxuu ka update gareynaa haddii wax jiro oo u baahan yahay oo fix iyo bug fix iyo bunch wax la bunch gareynayo le bis isbedelaya. haddii oo eber ka dhigtid oo saas yahay weligiisa ilaa aakhir zamanka laga gaaro saas uu noqonaa wax isbedelaya ma jiro. yani waxaad dhehaysaa wax yani update aad sameyn wax dhan aad sameyn waxaan u baahanahay bis version kan le u baahanahay. laakiin haddii oo magaciisa star gelisid meeshaaniti starkanit waxay caddeynaysaa wax kastoo la soo geliyay mathalan oo even xataa magaciisa saddexdaanit afar uu noqonaa wax kasta oo update ah oo la soo geliyo yaa wuu update gareynaa. taas oo runtii oo totally wax yahay wax oo qalad yahay oo inaas misid maahan. waa inaa iska taxadirtaa oo runtii iska ilaalisaa waxyaashaas camad oo adiga oo in case fahantaa saasaa lagu wadaa. marka waxaan rajeynayaa inaa wax yar nii fahamsiiyo waxyaashan wixii laga wado iyo waxay tahay micnadiisa insha allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.